waxaa laga qaadanayaa cidna ha dulmin qof walba oo i dhegaysanayo oo aniga aan ku jiro nooc kastoo dhib ah uu ku soo gaaro ducadaan akhriso ilaah ayaa faraj kuu furaya. nin waayeel ahaa oo socodka dhibku ahaa oo ul watay oo aad u taag darnaa ضعف iyo waayelnimo wuu tabar darnaa waayelnimona caatu ahaan ula jeedaa wuxuu marayay meel oo roob ku da'ay meeshana jidaa ku yaalay dhinacuu u socday maana dhinaca kale waxaa ka soo socday gabar si qurux badan u labisan iyo wiil dhalinyaro ah oo ninkeeda ahaa oo xoog badan wiilkaasoo gabadha gacanta ku haystay waa soo agmaray marka isaga dhinacaasuu u socday wuu turaanturooday si xoog badanuu biyihii ugu dhacay biyihii meesha geeska biyihii marka waxaa ku daatay gabadhii oo dharka quruxda badan wadatay gabadhii way ooysay haweenkana quruxda ومن ينشأ في الحلية وهو في القسام غير مبين وآيات قرآن واي قروح ذا دبيعة واي أنا هالدبيعة أنا طبعي هوينك وحق قروح مركا على كل حال قروح ذي ناوعك جارتي ويحنا قضي وحنا هذا معركتين كذا حنا هذا فير إن كان قضي واحد وسمه مركا ساو وحنا قيسنا قضي وتي wuxuu dhahay xaaskayga fiirisaa u gashay dharkii caddaa oo quruxda badnaa oo dhan marka waxaa wixii dhooqa ahaa oo dhan asaga marka waa dhoqaysan yahay odayga meeshuu ku dhex jiraa caqliga wuxuu keenaa odayga inuu soo qaado soo joojiyo oo ushiisa u dhiibo oo iyagana ay sabraan dadka oo mu'miniinta saxda ah waay laakiin ninkan markii odaygii uu dhahay waa u jeedaa waa turaanturooday raali ahaada wuxuu gacantu ku qaaday marka dharbaaxyo feer u ego ku dhiftay odayga meesha ku kala dhacay isagoo dhaawacna gaaray markaasaa gabadhii markii odaygii saas uu ku sameeyey way faraxday gacantuu soo qabsaday markaasaa waxay aragtay odayga afka wax dhexdhahayo laakiin horey u baxeen gurigay aadeen gurigii markay aadeen albaabka markay ka galaayeen jaranjada albaabka tan koowaad markuu lugta saaray wuu turaanturooday waa wiilkii wuu soo dhacay meesha ku dhacay qalaf wuu dhintay isla meeshii way ruxruxday waxay aragtay naf dhan inuusan lahayn daday u yeertay calaa kulli xaal ambulansiyaa loo yeeray wuu naf baxay wuu dhintaa la yiri maxkamaday tagtay waxay dacweysay ninkii odayga ahaa oo daris la ahaa waxay dhahday odaygaasaa sixray afkiisu wax sixir ah uu ka dhahay marka waxaan rabaa in maxkamad la ii soo saaro ninkeyguu iga dilay calaa kulli xaal dacwada sheeka caanay noqotay xaafadaasi markaasi kadib odaygaa maxkamad la keenay maxkamadda waa la buuxaa qaadiga wuxuu dhahay waxaa lagugu haystaa inaad sixirtay ninkaas oo sixir ah ku dushay wax jirana waay qofka dadka qaarkood inay sixir isticmaalaan dadkana ay dilaan wuxuu dhahay afkaaga maxaa ka soo baxay waxbay aragtay inaad afkaaga dhehaysay maxaa dhahday odaygii wuxuu dhahay anoo turaanturooday oo biyo ka buuxo oo waayeel ah oo aan dhahay raali ahaa waxaasoo wasaq ah uma qasdin oo wuxuu igu dhiftay dharbaaxyo feer u dhiganto oo halkan una i bararsan tahay i dhaawacan tahay markaasaa waxaan dhahay xasbuna allah ونعم الوكيل ودعاء قف والبول الظلمه علماء قارقد وحدهن ودعاء الفرج قف والبول الظلمه دعاء الله ربنا واخرسته حسبنا الله ونعم الوكيل إله أضاء وفلان أضانا وكيل شيء انت اسمركو دحي ايا وحو دحي waxaan dhahay ilaahu waxaad i tustay awoodiisa anna ilaahu waxaan ku weydiistay awooddaada inaad tusto meeshuu ku dhintay ninka waxaa laga qaadanayaa cidna ha dulmin qof walba oo i dhegaysanayo oo aniga aan ku jiro nooc kastoo dhib ah uu ku soo gaaro
ducadaan akhriso ilaah ayaa faraj kuu furaya. wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakatu.